ra'iisul wasaaraha Soomaaliya dawlad isku sheega xagga ay naga xigtay xamar ayaa soo hadlay reer Somaliland ama shacabka Somaliland ee soddonka sano masiirkooda ka taliyay ayuu ku yiri waa dad riyoonaya marka horeba isagu wuxuu ahaa caqdeer aan caqli lahayn bal haday leeg fariinta kale diray qolo kale u diray oo riyoota ninka xamse sheeganayaan habeen mu jirin halku dadkiisa ku xoreyn lahaa uu ahmaarka iyo oromada kaga xoreyn lahaa ayuu maanta meel la soo istaagaya isaaq waa dad riyoonaya waxaan leeyahay xamse cabdi barraw waxa weeye adigu horta dabadaada soo xoreyso nin dabadiisa waxa weeye la fushan yahay ayaa tahay adigu jawaabba uma galantidba waayo oran baa kaa qaada cashuurtaada oran baa shidaalka ay qaatay 99 halna kuuma soo reebin kolkaasaad Somaliland ku leedahay waa dad riyoonaya war Somaliland dad riyoonaya maaha Somaliland waa dad qadyar leh waa dad aragti leh waa dad dhowr iyo 30 sanadood goonidood u noolaa oo lacag leh u gaara oo wadan u gaara leh oo calan u gaara leh bal adigu maxaad haysaa war qodobka labaad ee ka hadlaya waxa weeye waxaan maqlanay abwaandahagaas markuu heesta qoray Somaliland nimanka la yiraahdo gaar ahaan isaaq nimankaasi awalba ahmaara dhashay oo ahmaara qaar badan oo ahmaari way jiraano sidaas ay ahmaaradu u jecel yihiin bal hadda waxaad leeyahay Ilaahay baan idinku dhaariyay reer Somaliland muuqaalka naga sheergaray gaarsiiya cadawga jamhuuriyadda Somaliland ma ogola in xaqiiqooyinka la horkeeno bal hadda waxaad leeyahay sarkaalkan abwaankan reer garoowe waa sarkaal waliba abwaan indhihii shacabku ay eeganayeen ay ku daba faylayeen waxa uu leeyahay xasan sheekhow haddaad waxa iyagana sii weydid waxa weeye xamar waxa weeye caasimadka qowraweyn oo jigjiga la yiraahdo ayaanu leenahay isku shubi doonaa war reer Somaliland ama beesha isaaq la yiraahdo ma marka kaliya eeg hadda ee ay heshiis Itoobiya la galaan uunba ajaanibta Soomaalidu nacda ma markaasoo kaliya uunba ma garanaysaa cadow Soomaaliyeelata ma markaasoo kaliya uunba isaaq cadow laga dhigtaa ma markaasoo kaliya uunba la yiraahdaa isaaqow waxa weeye waxaad u nikinaysiin maxaa yiraahdaa dad ajnabi ah oo ahmaar iyo oroma soo jiidanaysiin bal hadaba eeg aqliyada isaaq lagu caayayo kan miyaa wax laga qabto sarkaalka sheeganaya ee ugu hanjabaya xasan sheekh jigjigaan tagi haddii xasan sheekh waxa noo sameeyay weeyay ee ku rikaataynaya ee ku faanaya jigjiga war jigjiga xoreyn bay u baahanta war saaxiibayaal soo dhawaada muuqaalkan hadduu ku soo gaadho like saar sii share garee aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaynu ka hadli doonaa heestii uu qoray abwaan allaha daayay abwaanka maskaxda tuujiya ee abwaan daahagaas ayaa fanaaniintii qaaday ee ku yaraaye qaaday Cali Saki Cabdi Jibaar Gacaliye low uu u dhiibo koox ka tirsan marka dayax baan la yiraahdo dhamaantood maanta waxa weeye godob bay wada yeesheen oo haddii ay xamar tagan waa lagu dilayaa waxa weeye aynu ku horeyno mid diyaana la yiraahdo oo sida hablaha isku cadeeya oo malaha sida hablaha ragga u doondoona ayaa markiiba soo qaatay waxa uu yiri Somaliland inay maanta fanaaniin ka tirsan ay yiraahdaan intay soo istaagaan meel masraxa ay yiraahdaan ahmaar baa nooga dhow xamar iyo garoowe waxa waa cuqdad umada lagu beeray buur dayax dal nuurshe hadalkaas soo yiri wadarkasan kuwiin dayax dal nuurshe la meedha kuwiin dayax baa la yiraahdaa waxa weeye sida ragga wax uma dareemo balse sida dumarka ee dhidigu wax u dareema bar Allah idinku dhaariya hadalkan uu soo qoray eega ta fanaanka isaguna qarannimadu qanjaha joogto ayaa u jawaabay ee Khalid Kamil waxa uu ku yiri adigu waxa tahay fanaanka kaliya ee shacab intay comment u qoreen commentigii ku ficil qaata cuqdadna comment ku qaaday war aniga dhowr iyo 50,000 oo qof dhowr iyo 50,000 oo maxasle oo aqoon-yahan leh oo culimo leh ayaa magaalada Hargeysa lagu duqeeyay adiga kuwiin dayaxow adigu maxaad cuqdada ku qaaday baan leeyahay adigu maxaad cuqdada ku qaaday dayax dal nuurshana waxa weeye shacabka Somaliland waxay u soo faqeen ku yiraahdeen soo digi badeen iib ma halaha Hargeysa ima maysid inta ayuu ka qaaday cuqdad war qodobka labaad ee ka hadlaya waxa weeye waxaan maqlanay abwaandahagaas markuu heesta qoray Somaliland nimanka la yiraahdo gaar ahaan isaaq
nimankaasi awalba axmaaraa dhashay oo axmaara qaar badan oo axmaari way jiraanoo sidaasay axmaarada u jecel yihiin bal hadda waxaad leegtid ilaahay baan idinku dhaariyay reer Somaliland muuqaalkan iga sheergareeya gaarsiiya cadowga jamhuuriyadda Somaliland ma ogola in xaqiiqooyinka la hor keeno bal hadda waxaad leegtid sarkaalkan abwaankan reer Garoowe waa sarkaal waliba abwaan indhihii shacabku ay eeganayeen ay ku daba faylayeen waxa uu leeyahay xasan sheekhow haddaad waxa iyagana siin weydid waxa weeye xamar waxa weeye caasimadka qowra weyn oo jigjiga la yiraahdo ayaanu leenahay isku shubi doonaa war reer Somaliland ama beesha isaaq la yiraahdo ma markay kaliya eeg hadda ee ay heshiis Itoobiya la galaan uunba ajaanibta Soomaalidu nacda ma markaasoo kaliya uunba ma garanaysaa cadow Soomaali yeelataa ma markaasoo kaliya uunba isaaq cadow laga dhigtaa ma markaasoo kaliya uunba la yiraahdaa isaaqow waxa weeye waxaad u nikinaysiin maxaa yiraahdaa dad ajnabi oo axmaar iyo oroma soo jiidanaysiin bal kan caasimadda ku faanaya jigjigi maanta ma waxa weeye jigjigi ma caasimad Soomaaliyeed ba soo caasimad waa meel Itoobiya ku taala waa meel Itoobiya ku taala bal hadaba aqliyada isaaq lagu caayayo kan miyaa wax laga qabto sarkaalka sheeganaya ee ugu hanjabaya xasan sheekh jigjigaan tagi haddii xasan sheekh waxa noo sameeyay weeyay ee ku rikaataynaya ee ku faanaya jigjiga war jigjiga xoreyn bay u baahan tahay Soomaali galbeed in la xoreeyo u baahan yihiin jigjiga xoreyn bay u baahan tahay cagdheer waxay u baahan tahay xoreyn bay u baahan tahay bal indhihii waa sarkaal ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan Puntland buu joogaa waxa uu leeyahay Itoobiya nu tagi doonaa jigjiga caasimadeeda noqon doonta jigjigana waa meel Itoobiya ku taala bal hadda ilaahay waxaad ilowsan tahay caasimad inna lillahi xamar ka qoora weyn oo jigjiga la yiraahdo inaanu u dhalanay baad ilowsan tahay haddaanu doonno anagu jigjigaanu ku shubanaynaa meel cad lagu dhigtaba aad weydidi waayahay haddaba nimanka sidaa u hadlaya waa saraakiishii ka amar qaadanayay dani iyo xasan sheekh ayaa leh waxaanu tagaynaa jigjiga waatu dumarku naga furmaan jigjigaanu xasan sheekh oo ka soo jeesan haddii waxa aanu rabno aad noo yeeli weydid xasan sheekh dadka horumaray ee dhowr iyo 30 sanadood masayrkooda iyo aragtidooda ee dalka gooniga dhistay ee nabadda ilaahay ku garab garay taagtay ee calankooda harsanaya ee nabadda ku naaloonaya xasan sheekh intuuna faraha la soo gelin saraakiishiisan ugu hanjabasay waxaan tagaynaa jigjiga waxa ka qabto ka kale ee waxay noqotay cagdheertaa waan idin sii daynayaa fiidoogiisa xamse maxay barakan la yiraahdo ee ra'iisul wasaaraha Soomaaliya sheegta waxa weeye isaga qoyskiisa ayaa uga baahan inuu magaranaysa dabadooda xoreeyo maanta ninka ogaadeena ee maanta uga sheekeynaya magaranaysa isaaq way riyoonayeen iyo Somaliland waa lagu riyoonay ninka yiraahda wallahi oo billahi inuu habeen jirin ninka xamse sheeganayaan habeen mu jirin halku dadkiisa ku xoreyn lahaa uu axmaarka iyo oromada kaga xoreyn lahaa ayuu maanta meel la soo istaagaya isaaq waa dad riyoonaya waxaan leeyahay xamse cabdi barrow waxa weeye adigu horta dabadaada soo xoreyso nin dabadiisa waxa weeye la fushan yahay ayaa tahay adigu jawaabba uma galantidba waayo oran baa magaranaysaa kaa qaada cashuurtaada oran baa shidaalkaagii qaatay 99 halna kuuma soo reebin kolkaasaad Somaliland ku leedahay waa dad riyoonaya war Somaliland dad riyoonaya maaha Somaliland waa dad qadyad leh waa dad aragti leh waa dad dhowr iyo 30 sanadood goonidood u noolaa oo lacag leh u gaara oo wadan u gaara leh oo calan u gaara leh bal adigu maxaad haysaa Soomaali galbeed haddaad tahay adigu maxaad haysaa jigjigay waxa weeye ka kuugu masabka sareeyo magaca sare qaataana waa ka intuu xamar intuu tago Somaliland wax ka soo sheegaya tiisaba daryeela tu kala ku dara ay Soomaalidu tiraahdo xamse cabdi barre ninka la yiraahdo hadal uma banaana dabadaada ka xorey axmar qodobka isaga halka ayaan kaga tagayaa